بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala kownkan aynu ku noolnahay waa uu soo nuqsaaminaya, waa la galbanaya, waa la socdaa. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu miyaynan arkaynin, miyaan loo jeedin, miyaydan ka warhaynin in koonka hareerihiisa laga soo socdo oo nanqusuhaa min atraafiha, hareeraha la iska soo gurayo. haddiisan gurigaadu gaari ka dhicin, guriga dariskaada ka dhacaysaa. haddii xaafadaada aysan ka dhicin, xaafadaha kale ka dhacaysaa. dalka iyo gobolka iyo degmadaad ku nooshay haddiisan gaaridu ka soconne, meel kale gaaridu boqolaal iyo kun loogu dhimanaya. ilaahay subxaanahu watacaala la kulankiisa u diyaar garo. ilaahay subxana wataala isaga dhahaya: waaladiina aamanuu mushfiquuna minha. qofka mu'minka marka qiyaamaha iyo saacadda looga sheekeeyo waa u hiloobaya. maxaa yeelay waa maalinta ugu dambaysa murug oo dhan hadduu yahay qof camal saalixa leh. waa maalinta ugu dambaysa keed oo idil hadduu ahaa qof ilaahay ku xiran oo muwaxid ah. waa maalinta ugu dambaysa arad xumo iyo gaajo iyo silic iyo xanuun. maxaa yeelay jannadu intaas oo dhan ma yaalaan. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. waxay ogyihiin mu'miniintu qiyaamaha iyo la kulanka ilaahay saacadu inay xaq tahay. halka ay gaaladu ay kala yihiin may dhacdo where is the doomsday, where is the judgment. aw maalinta qiyaamaha waxaad sheegaysaa waxba kama jiraan. muslimka iyo mu'miniintu way ogyihiin dhab tahay, wayna ka heli doonaan insha allahu tacaala. walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala aniga adiga waqti yar kooban buu na siiyey. waqtiga asagaana xisaab baa ka dambaysa. cumrigaada la isweydiin doonaa, timekaaga la isweydiin doonaa, waxaa la isweydiin doonaa xoogaaga, waxaa la isweydiin doonaa araggaagan, waxaa la isweydiin doonaa maskaxdaad ku qabatay. ilaahay subxana wataala adduunyada markuu ku keenayey oo caalamkan uu ku keenayay jalla sha'nuhu, awaamir buu kaa rabay. awaamirta aan la timaadiy in kalene waa la iska kaa weydiin doonaa. oo falanas'alanna aladiina ursila ilayhim ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. caalamkan wuxuu leeyahay anu kama madhnin, waan joognaa. caalamkan malaa'igta ilaah subxana wataala kaga qoraysa falanaqusanna calayhim bicilmin. aqoon jaan go-an buu ilaahay subxana watacaala kaga qoray. wax walba oo samaysa waa nagaga sheekeyn doonaa qiyaamaha markaad ilaah la kulanto. walaalkayga qaaliga waa bisha aynu ku jirno iyo asbuucyada aynu ku jirno iyo maalmaha aynu ku jirno waa maalmo fadli gaar ah leh. nabiga waxaa laga wariyay alayhi salaatu wasalaam xadiidkii uu wariyey imaamu tirmidi, imaamu axmed iyo maartay tabaraani intuba ay wariyeen. nabigu wuxuu ahaa mid ugu jacayl badan, kaana axab wuxuu ahaa mid aad u jecel an yasuuma fi shacbaan. wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam in uu soomo xilliga shacbaan. isla xadiis kale oo usaamata bnu zayd radiallahu canhu ou leeyahay rasuulka ilahi waxaan ku uri yaa rasuul allah, maxaad bilahan bishan ramadaan way aad priority gaara u siinaysaa? bishan ramadaan bilaha kale si aadan usin baad u soontahay ya rasuulallah. markaasaa nabi wuxuu alayhi salaatu wasalaam daaka shahrun, waa bil yakfilu nnaasu canhu, waa bil dadka badankoodu ay khafad kaga jiraano acmaashana ilaahay subxaanahu watacaala loo qaado. waxaan jeclahay camalkayga fa uxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im. waxaan jeclahay camalkayga in kor loo qaado oo ilaahay loo geeyo anigoo sooman buu leeyahay nabigu alayhi salaatu wasalaam. nabigoo loo dambi dhaafay, waqad gufira lahu ma taqadama min dambihi wama ta'akhar. xabiibullah isagoo ah buu saa leeyahay. adigu miyaadan jeclayn in ilaahay subxaanahu watacaala acmaashaada loo geeyo adigoo sooman, adigoo istikfaar ku jira, adigoo quraan akhrisanaya, adigoo ilaahay ku xir? miyaad doonaynin? jawaabta haddii haa tahay khayrka u dadaal insha allahu tacaala. asaabicdane xadiiskii sidoo kale imaamu bukhaari uu wariyey min xadiidi maartay abi musa alashcari radi allahu canhu: in allaha laa yanaam walaa yanbagii lahu an yanaam. ilaahay subxana wataala mana ilmoodo, mana seexdo, umana habboona jalla sha'nuhu.
حجابه نور. مركز النبي عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. عمل كمالنتي أيا لوجد بيا كهبينك كهر كهبينكنا وحا لوجد بيا مالنتي انت لقارن ساسا لو دلدليا. مركز إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أعماش صالحاتك إيه أقواش صالحاتك قبطي با إله سبحانه وتعالى لو قينيا. مركز الله صرفيا وأسبوعي مالنتيني isla xadiis kale imaam Bukhari uu warinayo nabigu cali muslim uu warinayo nabigu asaga dhahay cali sallallahu alayhi xadiis abi hurayra radiyallahu anhu dadka acmaashooda maalin kasto khamiis ay isna ilaahay subhanahu wa ta'ala loo rafciya markaas dadka loo dambi dhaafa illa laba qof oo kaanat baynahum shahna illa mura'an yani kaana baynahu shahna illa laba qof oo dhaxdooda uu shahna iyo xogaa wax ka jirjiray ma ahan midmood uu ka jiray ma ahan dadka waa loo dambi dhaafa markaas iyagana waxa leeyahay انتظر يعني هلو سوى حتى يصلح وحال إلا أنت كسو هجاجيان وكسو شين هلو سوى ولا ريال إنه إله سبحانه وتعالى أعمال قروح بدن إنه لقح بله especially بشن شعبان كيبش صعتبة إنه خير كود ذا وبال إسقوريو وبال إسكسو مقين هي أذيقو تكوني قيام الليل أذيقو قرآن آخر سنة أذيقو صدقة بحنية أذيقو صوما أذيقو تهجدية نفتها كعب هذا حياك الله وبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.